gabadhan waa gabadhii qabriga hooyadeed dul taagneed. qof kasta oo waalid ah oo gabar dhalay oo hooyo ah ama aabba ah muuqaalka gabadha aad buu u damqay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa idin salaamayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan. oo walaalkiin Cabdullaahi Macali Xuseen waa rajaynayaa anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigeen uu mar kale dib inoo kulansiiyey isagay mahadaasi oo idin u sugnaatay. inta dhiban Allah ka dulqaado, inta isugu toosan tahay Allah u barakeeyo. nabigeena calayhi salaatu wasalaamna aan ku wada salino. dareenka uu muuqaal ka reebay waalid kasta oo Soomaaliyeed uu damqay. xaqiiqdu say tahayna weeyaan qof kasta oo waalid ah oo gabar dhalay oo hooyo ah ama aabba ah muuqaalka gabadha aad buu u damqay. sida ay kula tahayna qaybta comment gabdhaha Soomaalidu marka loo eego dunida gabdhaha saaran waa gabdhaha ugu qiimaha badan. sababta aan ku dhahayo ayaan ku sheegayaa. bal marka hore muuqaalkeeda dhabta ah iyo gabadha waxa dhibaatada inta leeg u geystay ila dhageyso. gabadha Soomaalida oo Minneapolis qabuuraheedu joogta ayaan rabaa sheekadeeda inaan ka dabageeyo. ma garanaysaa gabadhaas iyadoo xaaladeeda ay dhag tahay oo isugu toosan tahay oo hooyadeed la nool baa maalmaha kamid ah waxay baratay wiil Soomaali ah oo Turkiga jooga. maalintaas loogama horreyn. ma garanaysaa adigu calaa kulli xaal waa la isu kaansaday, waa la isfahmay, kadibna hooyada ay loo tagtay waxay ku tiri hooyo ninkan ayaan rabaa oo Turkiga joogay ka sheekee bay ku tiri. maamadii Janiya raxma Allah siiyay waxay ku tiri maanday ninkan hadduu kaa fogiyo Turkiga uu joogo maad mid meesha inta iska diisid kaas maamid meeshaan jooga baratid bay ku tiri kaasaa lagu qaataaye. markaas waxay ku tiri way ku adkaysto waxay tiri hooy kanaan rabaa. qofku markuu kaan wen yahay waxyaalo badan oodan adigu ogeyn asa gabar ma arkino ama qof ma arkino yar markaa tahay waxyaalo badan oodan ogeyn buu qofku markuu kaan wen yahay uu ogyahay. ma garanaysaa adigu calaa kulli xaal gabadhii ninkii way ku adkaysatay waxay tiri hooy ninkan ilaa asay iiga dhigan tahay bay ku tiri. ma garatay gabadhii sidii baa ninkii loogu daray haf iyo balo bay tiri Turkiga tagtay. ma baantay Turkiga markay tagtay ninkii adigu calaa kulli xaal abaar bay la soo joogtay way soo noqotay halkaanay timid processkii oo keenista ay u bilowday. ma baantay markay gabadhii ninkii processkii ay u bilowday process badan ay u martay waxyaalo badan ay u samaysay calaa kulli xaal naagti noolayd oo ragga ahayd ninkii waa keensatay. ma garanaysaa hadda waxay istiri hadda si fiican kuugu toosay because hooyadan oo kula joogtaa ninkaaga jacaylkaaga dreammankaaga waa keensatay. ma baantay دوا كاسا أدو على كل حال يدو سقوط توصل تهين بني آدم أما قف بني آدم حالة دي سواء تقانعي مر على مركز سقوط توصل ما كان سو باسبور كيس أدوية شقة زوجي إنه سقوط توصل بمعلم كنت سوفر زوجي قريب يسوي it's over بكير ما قرأت القضاء هذا قصة أنا قبل بعد شعره كان سنة قبل دي دوات قرن سوى سكوب ما فهمتي مر على مركز سكوب والقضاء دوسي على كاسو كبحة ما فهمتي مر على مركز كتجي bay gabadhii hooyadeed markaas way nooleedeen 2 bilood kadib ma qaba waxay ahayd adu abaar kadib gabadha hooyadeed baa hadana dhimatay adu bila kadib hooyadeed dhimatay. ma fahantii hooyadeed markay dhimatay dawaas ka garanaysaa qof shalay toole adduunka markaan ku dhahayo maanta markaa waxay satid bari waxa laga yaabaa inaad haysid adduunkan ku tashan. ma garanaysaa maanta isugu ka toosan tahay bari waxa laga yaabaa inay sidii shalay soole isku ahayn. ma fahantii adu calaa kulli xaal gabadhii hooyadeedna waxay ku weeday ninkii markii la furay bila kadib way weysay ninkii ay keensatayna sidii buu nolosheeda uga baxay. ma gartay waxaasoo waqti ay soo gelisay qarash. ma garanaysaa binu aadan abaal male waa la wada ogyahay laakiin ilaahay baa ka dambeeya. ma fahantay nafsi qofkii urursada asaga ma arkin oo ka warkeena. ma gartay faraha laga qaada qofkaas oo kale aniga taladeeda taas waa adu calaa kulli xaal gabadhii ninkii markii ma arkin oo ninkii ka tagay hooyadeena ka dhimatay way isku buuqday. ma fahantay maalmaha kamid ah waa iska garanaysaa iyadoo baabuur wado ma arkin speed midna kooda I don't know how xaaladday ahayd baa booliis baa joojiyay maxaa waxa laga qaaday laysinkii waa laga jabiyay baabuur daba ma wadi karto. gabadhi way isku buuqday. ma garanaysaa gabadhi finalkii waxay imaadaa markasta aysan ka dhaqaaqin oo timaadaa meesha qabuuraha oo Minneapolis ku yaal oo hooyadeed meeshaas ay ku duugan tahay markasta timaadaa markii la weydiiyo la dhahay maxaa kugu dhacay waxay tiraahdaa I wish hooyaday taladeeda inaan maqli lahaa. maalintii waxay ugu tiri hooyada يا نينكاس إسكده اسكده إلا ما أنت دبعت هذا إيه إما يستنى هيسلين ما فهمتي ما قرنا سا ما أنا أوجين بيتري هبل إنه يجتجي ما أنت هدان كان إنه يجتجي ما أنا أمليني بيتو حتى حالات دي إنه ساكن في عنان سنوجاني مرك على كل حال قبل أمر رجع دمر واحد يشيء هرت بهالك نفسي كلي يراهدو نفسي بهالك اللي يراهد ما أنت طلعت فرح سنتاي السوق توصنتاي قف السوق ينتي يا way ka daba imaanaysaa baashaan rag iyo dumar midna ma kala laha. ma fahanti marka walaalayaal anigu waxaan kula talinayaa dadka Soomaaliyeed oo dhageysanaya rag iyo dumarba walaalayaalow isu badnaada masiibo ayaa ugu soo kortay oo dadka innocent oo qalbiyadooda wanaagsan yihiin ka faa'iideysanayee ama rag ahaada ama dumar ha ahaadee kollayba raggana waa la dhibaateeyaa dumarkana waa la dhibaateeyaa niman badan waxa aan baaqaana la dhibaateeyo inta wadanka dadkeenana dana laga tago niman kale laga raacay. ma garanaysaa dhibaatadu kulligan waa u siman weyn xanuun badan tahay walaalayaal bal is ilaaliyo hadaad xataa energy bixinaysaan
naftiina ha iloobinin gabadha Soomaalidana experience-gi ay soo martay iyo xaaladda ay soo martay Ilaahay waxa uga baryaa inuu Ilaahay qalbiga u dejiyo ma garanaysaa way adag tahay qofka bini'aadanka marka qof inta soo xambaarto halkan keento dhibaato dhan la soo martay uu ku dhaw qof kale ka raacay oo ka tago way xanuun badan tahay ma fahameysaa raggeeda mar dhibaato horta intaas weeyaan qodobka marka muhiimka ah raba inaan ku daro wax waaye waalidiintu hadda dadkeena Soomaaliyeed waalidiintooda laba loo kala qaadaya waalidiinta ma hooyada mise aabaha aabayaasheena Soomaaliyeed waa ka warqabnaa xaalkooda lidin kaga sheekeen maayo waa raggan wada cimaamadaha waaweyn ee duubabka waaweyn ee gabar kastoo Soomaaliyeed oo la dhibaateeyo iyadoo calankeeda hoosteeda joogta lagu dhibaateeyo maalin walba u soo toofixaydanayo oo dhahaya war magtii aan qaadano war sidii aan qaadano war aan qaadano maxay tahay xaal masuur aan qaadano ku hayo horta dhanka waalidiinta ee aabayaashu halka bay taagayeen qofka dumarka ah markasta waxaad ogaataa waalidkaagu maslaxadaada uu ka talinaya ma ogi ku xisaabtan oo niyadaada gali in waalidkaagu uusan ligooyadaada ka talinin allahumma waalid intaa u duleela oo wuxuu liqa un moogi cid kale aan waji kale marka laga reebo waalidkaagu markasta wuxuu jecel yahay inaad dhaqanto meel ka soo jeedsato qof meel degan aad noqoto hooyo aad noqoto ilma aad dhasho bari uu ku soo hirto oo yiraahdo gabadheedii baa halka degan ama wiilkigii baa halka degan markasta waxaad ogaataa waalidkaagu talada uu ku siiyo in ay tahay taladii ugu habooneed ee isagu uu qaadan lahaa runtii qisada waxay aad u xanuujinaysaa qof kasta oo waalid ah meel walba dunida uu ka joogo arinta gabadha masaakiinta ah haysato qalbigooda ayay taabanaysaa ilaahayse waxaan u weydiinaynaa in gabadhaas masaakiinta ah qulubteeda iyo qalbigeeda u soo celiyo inta dhibaato oo gabadha ku dhacday waa dareemi karaysaa shaqadeedii bay ku weyday leesinkeedii bay ku weyday noloshii bay ku weyday maskaxdeedii iyo maankeedii bay ku weyday inta ay dhibaato ee ninkaas uu u geystay wax qof bani aadan intuu ka yiraahdo laba dhihi kara maaha maanta waxay taagantay shalayta ah yaa laytani haddaan qaadan lahaa maalin uu hooyaday talada igula talisay ay taagantahay soo marka inta aad nooshahay oo maanta hooyada iyo waalidkaaga gacantooda aad ku jirto bay tale kula haboon tahay meesha aad lugtaada iyo ciribtaada dhigayso waa inaad ka fiirsataa oo ka feejignaata gabdhaheena Soomaaliyeed meel walba joogaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ceebooda ha asturo waalidiintoodana Allah ku asturo rabbina ha isku kaaya asturo dhamaanteen aad baa u mahadsantiin walaalayaal waxaan maanta kuugu bishaareynayaa ganacsi itus oo itaabsi ah haddii aad tahay hooyo jecel inay shaqaysato laakiin aan tabar u heenin caruurta ku xiriirta awgeed haddii aad tahay aabba banaan ka soo shaqeeyo laakiin ku daalay in banaanka uu ka soo shaqeeyo haddii aad tahay arday wax barta oo fursad u waayay in shaqo kale uu tago waxaan ku hayaa fursad ganacsi oo adigoo gurigaaga jooga caruurtaadana dhex joogo aad ku ganacsan karto waliba aan aaminsanahay in gacmahaaga aad dunkan doonto isla markaasina aad anfici doonto naftaada qoys